horta SSDF bilowgeedu magaca SSDF intaysan la bixin waxay ka bilaabatay kulankii Nairobi Cabdullaahi Yuusuf uu ka fikaday ciidamadii Soomaaliyeed ee taliyihii qaybta uu ahaa galbeed koonfur galbeed oo Nairobi galay markaas ay halkaa joogeen ay ka abuurayeen dad badan oo ganacsato leh oo odayaal siyaasiyiin leh oo si maaragtay iyagu uga ifooday markaas xaaladihii jiray ay ku urursanaayeen markii Cabdullaahi xaggaas tegay marka uu tegay saraakiil la socotay ay dalka Kenya galeen waxaa markaas wax la su'aaleeyay iyadoo ay siyaasiyiin hore oo SSF la baxdayna markii hore ay jireen oo siyaasiyiin soodaf oo aan garab ciidan lahayn ay joogeen ay ka mid ahaayeen Cismaan Axmed Cali Qonof iyo Xasan Xaaji Cali Mire ay ka mid ahaayeen oo dalka Itoobiya xiriir la sameeyay hore haddii Kenya marka la isugu tegay isku dayga aniga shaqadayda waxay ka bilaabatay markaasaan anoo fasax caafimaad oo dhaawacii dagaalkii ah ayaan si dhuumashaa ku tegay inaan xog u helo Kenya markaas waxaan soo ogaaday xaaladda jirta dad yar baan la kulmay Kenya waa markii waa bishii June 28 haddaan dadkii yaraa markaas la kulmay xaaladii aan ogaaday waxaan markaas anigu aan isku qorsheeyay ama jeclaystay meesha la aadayo markaasna Ethiopia ay tahay way dawladda Kenya ayaa la weydiiyay markii hore la weydiistay base inay nasiiso way Ethiopia shaki ayaa jiray markaas isku aaminaadda saraakiisha iyo ciidanka iyo wixii kale oo qalab oo jiraba oo la tagaaba waxay ku dambeeyaan aayah dambe ayaa waxaa jirtay su'aal question mark in marka Ethiopia laga keeno xaqiiq dhaba lama ka halgami karnaa bise kama halgeli karno leeso weydiiyo marka la qiimeeyo ma laga halgami karaa mise lagama halgami karo haddii marka meeshii Kenya waxay tiri anagu ciidamada Soomaaliya oo Ethiopia oo 2,000 sano in ka badan dawladda ahayd u babac dhigto jabiyay oo adduunku u soo gurbaday ila Ethiopia waxay ku badbaaday gurmad adduunka dawladda shuuciga ay siiyeen bay ku badbaadeen Ethiopia ciidanka dalka Soomaaliya ciidamadeedu dhulka badan oo muhiimka way qabsadeen hadii sabab baan la gaaray hadii herer la gaaray hadii dirdaba la gaaray hadii xaq kariila mooyaal la gaaray hadii jawaabta wax walba markaas ciidanka intaas maray markii dambana in adduunka dhan ka soo qayb galo ay gaadhay shuucigii oo dhan anagu uma babac dhigi karno haddaan Kenya nahay ma hayn karno awooddaas marka kuma soo fasaxi karno dalka yaga oo marka furinta ma noqon karno anaga intaas awoodda madhay uma babac dhigi karno marka aan ruuftii dib baa loo laqay ahayd in Kenya laga furo base dagaal laga furo marka waxay noqotay bishii August horaanteedii iyo 28 August horaanteedii iyo haddana aakhirkeedii laba goor in wafti la isaga daba noqdo Ethiopia waa qorshaha laga dhaadhicinayo qorshahaas inay ogashay base aan laga duulo aan ka duulno inay nasiiyaan ururkaas aan furi doono oo marka horena wakiiladiis joogeen oo raggii hore oo meesha joogay ee hay'adda anaga matala ee hay'adda naga soo dadka iyaga kamida Ethiopia marka way ogolaatay inay base-kii ay bixiso laga duulayay iyo wixii logistic oo loo baahdo ciidanka in logistic noo soo madho iyaduna wixii karaankeeda ay maaragtay bixiso
halkaasaa marka meesha koowaad oo lagu gaaray in urur dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo military garab military in la sameeyo waxay ahayd Kenya ayay ahayd kabacdigii markii Kenya laga waayay bayskii cid ka cud daaratayna waxaa la goostay in loo wareego Ethiopia loo wareego oo Ethiopia meesha dhaqdhaqaaqi garabka ciidan ay ka dhaqdhaqaaqayaan ay noqday siyaasadaba ciidan iyo siyaasiyadba markaas in la wareego markaa intaas aan ka soo ogaaday anigu waan soo noqday Cabdullaahi baa kula shirtay xagga ayo iyo odayaashii masalan maxaan ku Ismaaciil Kaarshe iyo Cabdullaahi baan aragnay gaar ahaan wareysanay iyo maxaad xaj jaamacay rag odayaal waxaa joogay meesha aad u qaali ayaa joogay meesha marka inaan dib u soo noqdo oo hubaasha dhabtaa warkaas aan sugo gudahan aan ka shaqeeyo si gudaha marka aan uga shaqeeyo markiiba soo noqday marka dib baan usoo noqday dib usoo noqday marka waxaan bilaabay haddaan dib usoo noqday iyagu markaa waxaa la bilaabay ciidankii in laga diyaariyo wixii East Africa diyaar in ciidanka koowaad wixii Nairobi iyo soonkaas ku sugan in laga qaado anigu waxaan ugu soo noqday inaan gudaha ka shaqeeyo inta ciidankaas tabarsanayo inta la hubsanayo Ethiopia iyo inta xalka arintii inqilaabka saraakiishii marka lama layn saraakiishii inqilaabka inta go-aankooda dowladdu tallaabada ay ka qaadanayso inaan marka xiriiriyo noqdo oo xiriirka ka shaqeeyo ayaan isu xil saaray iyo abaabulka dadka gudaha iyo dibaddaba dhan kastaba waxaan soo saaray marka waxaan ka shaqeeyey kow inaan markaas aan maadaama dhaawacan ahaa aan ka baxo ciidamadii oo aan qof caadiya noqdo marqusaysaatay way aniga waxaan diidayay anoo kashaarkaygii gashan nabadgelyadkayga oo ka soo horjeeday inaan dal kala tago baan anigu diidanaa oo aan wadankii inta ka fikado dal kala tago anoo wadankayga u shaqeynay u dhaartay horta waa inaan dhaartii iyo wadanka xilka aan u qaaday aan iska xaliyo shaqadii waa inaan ka tagaa shaqadii markii waan ka tegey marka ciidankee ka tirsanay waxaan ka tirsanaa commandoska ayaa ka tirsanaa bayskeygu yahay Belidogle ayaan ka tirsanaa markaas ciidankii markaan ka tegey marka waxaan bilaabay inaan wixii dugmenti wadanka iga yaalay oo dhan aan ururiyo aan gubo because waxaan ka cararayaa hadhowdii waa socdaalayaa dadka wantirkaada wadanka ka tegey iyo dadka kiisaska lagu xogta waa la helayaa dal baad soo gelaysa adoo ka sheekay dalkiina waa lagu raadsanaya akhirka warkaaga waa la helaya qof kaa sheekaya ama Saciid ma arkaan xagga arkay marka dugmentiga waa midka la isku raadinayo meel walba la dhigayo inaan wax raago dugmentiga ama wasaaradda ama ciidamada ha ahaato ama wasaaradda tacliinta ha ahaato ama meel kasta ha wixii raadaha oo iga yaalay baan horta waranka ka kala gareeyay qof aniga ay garanayo iga soo horbaxa mooyaan qof igu gartaa inuusan jirin dugmenti ayaan ka shaqeeyey waan dhamaystiray markaasaan dalka waxaan ka qaatay haddana kiribanaale waxaan ka qaatay warqad dambi la-aanta wadanku markaa 16 gobol ah 16 gobol meel dambi ah wax dambi oo iga yaala inay jireen iyaga waa dhoofaya baan ku ilmo markaan qaadanay dhoofaya markii wadada dambi la-aanta hal isii ragan garanayo dee waa joogay oo ragaas hal sameeyay waradii dambi la-aantana waan qaatay oo inaan meel aan dambi 16 gobol markii meel kasta la baaro la weydiiyeyna inaanan dambi meelna aan ku lahayn ayaan maxaan ku raadaan markaas ayaan dambi la-aan taas jeebkayga waxaygan ku ritay waxaan ku darsaday dugmentigaygii maaragtay aan haysto jeebka kuma mar walba aan wato si inta la tumo aan cidina aysan igu soo dhicin markaasaan waxaan shaqada ka bilownay meel kasta markaa xiriirka ciidamada
iyo shaqaalaha dowladeed cid kastaba inaan kontakti garayn karo way cid aan u tirsanahayna ma jirto wax raadoo layga hayaa kalena ma jiro shaqadiina isa kala ergeeya banaankan ka maray anu nin oday Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed shabaab Soomaaliyeed dhowr iyo 20 jir ayaan markaas maxaan ku raaday way ku filan maanta sawirkayga inaan hadlo oo aan sawir maanta sawirkayga waa ii yaalay guriga garow yaalay inaan soo dhigo maalintaas sidaan u ekaayo xoogayga iyo magaciisiga iyo tabartayda iyadoo halka inoo taagan tahay oo arintii ay tahay bal aan sugno waxa la isku dayay marka hore waxa la abaabul wadanka gudihiisa aan ka galno tala oo ciidamadii siisamkii hore wuxuu ku feel garoobay innaga oo aad uga taxadirayna oo ka dheeraanayna abaabul aan xariyaa ka gal وانقلاب كلمة المفكرية ها xero walba hal isdiyaariyo goonideed maxaan ku raadaya markaas ka howlgeli kara oo positive maxaa negative anu waan diiday taas waxaan ku yidhi haddeer ba asaartii intii dhacday aan meel looga dabaalan kara aysan jirin haddii inqilaabkii hore fashilmay waayo inqilaabka fashilankiisu wuxuu ku yimi ma fashilmeen inqilaabkuya tii ilaahay baa meesha taallay waa kowtan kale inqilaabku waxay ahayd inuu ka dhaco hargeysabe gobollada waqooyi bale saraakiishii joogtay waxay ahayd in marka hore waqooyiga la qabto oo saraakiisha oo dhan oo taliyagaasyadii iyo taliya qaybkii waxay ka hooseeyey salxaan waxay ka hooseeyey caari iyo neere iyo caydiid iyo kulli xaggay wada joogaan in la qabto waqooyi ba markii waqooyi la qabto oo saraakiisha idaacadii ka hadlaan in markaas dowladdii tashankeedu wuxuu u jeesanayaa in gurmad la siiyo waqooyi aniga dhiib liban aad u wareysa inta xogtada waa raadiyay way anigu ragga Ingiriiska baramotriska ma aanan ahayn oo inqilaabkii xubnihiisii rasmiga ah ma aanan ahayn laakiin warkii dib baan u raadiyay dib markaan u raadiyay raggii baa ii warramay sida wax ahaayeen yaa la ii warramay markaas markii ciidanka halkan jooga la abaabulo oo la ambabixiyo waqooyi sida hawshaas looga hortagi lahaa ay dowladdu u jeesato oo xamar faaruqay tahay markaas kulmiski Cabdullaahi Yuusuf oo markaa inay soo galaan muqdisho ayay ah inta beledoogle safaynayaan guuteen la soo hormariyo oo afgooyo la xiro kabacdina magaalada cidla ay qabtaan bay markaas inqilaab saaran loogu dhawaaqa bay ahayd marka taasu waa fashilan yimi bay noqotay oo 9 Abriil ku tala gashay ma jirin 9 Abriil haddana waxa ku dhacday laba arrimood baa ku dhacday dadkii ka qayb galay dhaliili maayo laakiin sida wax ka noqdeen amarka Ilaah baan jirin 9 Abriil 12 keen waqtigaas inuu dhaco talagalka inqilaabka loo balansanaa 12 baa haddii 12 ahayd marka afar casho ayay hore loo soo qadimay qadimaadaas cida socotay ma jirin midda labaad kumaan boosna ma jirin meel laga hagaya iyo communication midna ma jirin ciidankii magaalada xamar ka diyaar garoobay markay 9 habeenimo gelinka dambe diyaar ahaayeen waxaa la waayay ciidamadii banaanka ka imanaya ayaa la waayay communication xiriiriyana ma jiro kumaan boosna ma jiro iyo communication lagu wada xiriiriyo ciidamada soo galay kuwii joogay markaas waxay noqotay marka goorti waagu bariyay oo 10 markii marayso wix ciidan magaalada gudaheeda ka diyaar garoobay inay kala tagaan oo yaan waagu ugu bariyay aan kala tagno ونقول مش سهجرة بريتو يهبان ده واحد يدب لقى أبابل الدون هلا أبابل هي النقطة مركز
ee intaasu dhacday markii ciidamadii diyaarka kala tageen ayay ciidankii banaanka ka imanayay ayay soo galeen magaalada markaas qololba meeshii waajibka ku lahayd abbaartay intaas banaanka ka timo soo gashay wax kaloo markaa ciidan oo diyaari ma jiraan iyagana kuwaan isku xirayay ma jireen sidaasaa marka waxay keentay in inqilaabku uu ku fashilmo si fudud ayay keentay ayay kaliftay marka waxaa la haddaan dib u baareen maxaa taas kalifayna waxaa la yidhi ninkii inqilaabka hogaaminaya Ciro ee waxaa loo soo sheegay inuu bedelna yahay oo ciidankii cirka uu markaas baanduulaha ka ahaa iyo howlgelintii guud u ahaa inuu bedel ka mid yahay dibaddana loo wado warkaas oo soo ogaaday isagoo uu xog ku helay ayaa marka wuxuu yidhaahdo aan inqilaabkii meel dhigin inaanu tegin maadaama uu kii ka ahaa ragga inqilaabka la socdo warkooda sir baa baxday marka malaha inuu inqilaab wado miyuu sirta inqilaabku waa iska ma baxan baxday in kala maaqan laakiin dawladda dawladdu way ka xogaalsantaa mar walba ma ogtahay marka in ay meel dibadda ambassador baa laga dhigay mase meel baa kolley waa laga saaray xaaladda ciidanka in laga saaray ayuu ogaaday saasaa keentay inay keento marka anigu taas waxaan aanin marna ma dhici karto inaga joojiya wax dama wadanka gudihiisa ka dhaca ilaa aynu awoodeysano oo aan dhisano oo aan himilayno inaan wax qabsan karin iyo inaynaan wax qabsan karin ee inoo kala caddaato suurtagal noqon mayso inaynu hawl aanu faldama aynu ka samayno wadanka inqilaabku waa dhacay inqilaabku waa dhacay wixii la qaban karay la qabay wixii la xiri karay la xiray markaas lama dilin weli raggi markaa lama dilin weli laakiin waxaan sugaynaa taas horta intaasaan ku joojino iska joojinay intaasaan ku xirnay weliba ninka anaa si fiican baan aan uga hortegay arrintaas aanay dhicin ragna waan helay waayo waxay ka soo wadankeena gudaheennii waxa aan mudan doonana marka ma naqaan meesha la tegay waxaa ku xigay marka kabacdi intaan nimanka la layn waxaa ku xigay abaabulkii ka socday East Africa khaasatan Nairobi ciidamaa la abaabulay oo Ethiopia ay ogolaatay in wadankooda la yiraahdo basin laga sameeyo laga dago basaskana way bixisay ciidamadii waa la abaabulay East Africa wixii markaa la heli karay falaydkii ugu horeeyay ciidan oo 200 baa laga diyaariyay Nairobi 209 September 78 ayaa boqolkii ugu horeeyay la qaaday oo la geeyay dirdhaba la geeyay erar gooto oo laga meeshii lagu dhisay ciidamada jabhadda ayaa la geeyay falaydkii labaadna 12 September ayaa la qaaday oo la geeyay isla dirdhabe erar gooto oo ka xigta dhanka Addis Ababa ka xigta 50 kilomitir galbeedka dirdhabe intaas hada marka waxaa la ogaaday marka in uu la faysgareeyay baqdintii ay jaban tahay oo ciidamadii mar haddii inay wadanka galeen la ogaaday haddana meel tababar la geeyay xaaladdu inay wanaagsan tahay isla markaasna waxaa ururay wixii kale oo meelaha hawdka joogay oo carrada joogay iyagana way is urursadeen